xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiska dowladda hoose degmada Burco ayaa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer inay gabi ahaanba iska soo bixiyaan cashuurta dowladda hoose degmada Burco ay ku leedahay waxaan u sheegay shacabka qaybihiisa kala duwan markay bixiyaan cashuurta inay markasta si lama laabayaan horumarka kala duwan ee ay maamulka dowladda hoose degmada Burco ay ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa sheegay cashuurta ay maamulka dowladda hoose degmada Burco ay ka qaadayaan shacabka qaybihiisa kala duwan inay tahay tii ay ansixiyeen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco gabi ahaanba isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan maagayso waxaad nagu canaananayso waxaanu dulqaad u leenahay ee aan ku shaqaynayna ee idinku idmanahay ilaahay halkan noo fariisiyay in aan xukuumaddiina soo magacawday iyo golihii deegaanka ummadda soo dooratay labada waxa iyagaba aanu diyaar u nahay inaanu dadka magaalada Burco bilicdeeda tadawurkeeda inaanu ka shaqeyno afaraad saac inta haddaba maxaa lagu qaban karaa marka maxay la helo waa marka idinkuna si hagar la'aana cashuurta u soo bixisa maanta qodobkayga ugu muhiimsan ee aan taabanaya bishii April baa maanta la maantay afartaa bilood cashuurtii dowladda hoose ee degmada Burco sidii loo bixin jiray toos laguma bixiyo muwaadin ama qurbaha joog ama dalka gudihiisa joog ama magaalada joog ama gobolka Togdheer ku noolow wixii halkan dhismo iyo dhul banaan ku leh waanu ka rabnaa cashuurtii muwaadin kasta in sida ugu dhaqsaha badan loo soo bixiyo golaha deegaanku waxbay kordhiyeen boqolkiiba 40 bay kordhiyeen wax inta siyaado lagu weydiinaya ma jirto boqolkiiba 40 ka soo bixi muwaadin dowladda hoose soo galaysa aanay ahayn sidii hore muddadaasna waxa jiray khilaaf baahsan oo u dhaxeeya golaha deegaanka ee degmada Burco maan la oran karayn mas'uuliyiintii la doortay ee golaha deegaanka ahaa oo adiguna ka tahay xogiyihii fulinta ee dowladda hoose degmada Burco khilaafkaas ka jira awgii waxaas ayuu sababay golaha deegaanku doorta bilaadanku horaan u sheego carab iyo labadiisa daanba way isqabtaan shaqadana keenta shaqadan meesha ku hayno ayaa keenayso dad waa la isku dhaliilaya waa la isweydiinaya waana la is saxaya taasi dhibaato ma laha wala wax iska dhamaan doonto insha Allah balse laakiin waxa taala golaha deegaanka waxbuu ansixiyay wixii uu ansixiyay baa dadka Burco laga qaadaya nuurna xarow maqal nuurna xarow maqal bale waxa dadka laga qaadaya oo sifo sharciye ah oo aanu maamulkii degmada iyo golihii deegaanka isku duuban banahay oo aanu ka midaysanahay cashuurta salawiga sanadkii marba miisaaniyada oo daraska miisaaniyada la sameeyo dalkoo dhan waxba madaxyada loo geliyaa wixii la geliyay waxaan hayn anagu dadka ka doormeeyay qofka shaqaalay weydiiyaan waa dambiile wixii golaha deegaanku ansixiyeen ayaan ka qaadanaa marka iskuma xidhnaa haddii de wax la isla yara garan waayo shaqo la isweydiiyo iyo cashuurta dowladda dadka ay bixinayaan wax isku xidhan laba la isu keenina karana ma la isu keenina ma waxaanu leenahay anagu codsanayna anaga waxba naga xmaalmaayeen dalnahay maamulkii degmada iyo goli deegaanka ba xagga iyaga waxba insha Allah naga xmaalmaayeen wuxuu baan isla sixi laakiin cashuurtan anagu maanta ka hadlaya ma aha arin kale qodobkayga wax kale ma aha subhanahu wa ta'ala ma hadiha ka gaadhay raxmadii guba iyo mid ka badan ilaahay waa inoo shibay qul alxamdulillah inna wadanna mar qura ilaahay u mahadnaqno ilaahayna waa inoo barakeynaya waana inoo siyaadinaya intaas waa qodob maadaama raxmadii ilaahay da'ayso dadweynaha waxaanu ka wacyi gelinaynaa uga digaynaa goobaha biyo mareenka ah iyo laagaga biyuhu marayaan iyo meelaha ay fadhiisanayaanba inay ka durkaan iyo jeer waxa timaada dhibaato ka timaada halka insha Allah ta'ala ilaahay waxba inaguma keeno ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa nicmada uu nasiib mahada ka gaadhay ilaahay inoo siyaadiyo nusqaanteedana ilaahay naga hayo kuwii ku shukrigan
وزعيد علي عثمان حاليس تلفزيون عالمي جوبونيمو مقالة برعي حرونت قبل كتغدر.